kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeena ciyaaraha halkaad kala socotaan waa Awal Official Channel. qodobada ugu muhiimsan wararkeenana waxaa ka mid ah kulamada caawa la ciyaaraya horyaalada qaaradda Yurub. Barcelona oo isha ku haysa sidee ugu soo noqon lahayd wadada guule. Benzema oo laba rikoodh khasaariyo kulankii Real Madrid uga sii dhowaatay hanashada horyaalka. Man City hogaanka horyaalka Premier League kala wareegtay Liverpool xilli 5 kulan ay ka hadhsay dhammaadka xilli ciyaareedka. Arsenal oo Stamford Bridge ku dhex ciqaabtay Chelsea. Neketo oo laba qalad ku dilay Blues iyo rikoodhka cajiibka ee laga diiwaangeliyay kulanka. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar haddii hore nala joogta laga share ku darsiina faafi barnaamijkeenin. soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeeni oo faahfaahsan. waxaanu ku iba furi doonaa kulanka La Liga ee caawa dhex mari doona kooxda Real Sociedad iyo Barcelona. kooxda Barcelona ayaa u safri doonta kooxda Real Sociedad kulan ka tirsan horyaalka La Liga wareegii 33aad. Barcelona ayaa isha ku haysa sida ay wadada guulaha ugu soo noqon lahayd kadib markii labadii kulan ee ugu dambeeyay ee ciyaarto tartamada oo dhan laga adkaaday. xilli Real Sociedad ay ka bayso kooxda Barcelona waxaa ugu dambeysay 2016 Abriil. ciyaartaasoo heliyay Emery kaga Real Sociedad kaga adkaatay ciyaar ka dhacday gegidan caawa lagu kulmiyay kooxda Real Sociedad. Barcelona kulanka waxaa seegay ciyaaryahanada kale Sergio Roberto, Pedri, Ansu Fati, halka Real Sociedad ay ka maqnaatay ciyaaryahanada kale Muriel, Fernandes, Rosbella. Benzema oo laba rikoodh khasaariyo kulankii Real Madrid uga sii dhowaatay hanashada horyaalka La Liga. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa guul ciriiri ka gaadhay Arsenal marti ahayd waxaanay kaga badisay 3-1 taasoo u saamaxday inay ku sii dhowaadaan hanashada horyaalka waddanka Spain ee La Liga. Real Madrid ayaa u baahan inay guulaysato 2 ciyaarood keliya 5 kulan ee u harsan xilli loo calaamay saaray horyaalka La Liga. kulanku Carlo Ancelotti nasiix xidigiisii ugu weynaa khadka dhexe Modric, iyo Toni Kroos isla markaana dhaawac kaga maqnaa Casemiro ay ku soo heleen 3 dhibcood si weyn ugu dabaaldegeen. 3 gool oo labadii qaybood ee ciyaarta kala leeyay David Alaba, Marco Asensio iyo guusha go'aamiyay Real Madrid halka kooxda garoonkeeda joogta Osasuna ay iyaduna la timi gool ay jawaab degdeg ah ka bixisay kooxda Real Madrid. goolhaya Herrera ayaa laf dhunkashay ku noqday Benzema oo ka badbaadiyay 2 rikoodh waxaana laacibka reference garoonka ka baxay isagoo aan wax gool ah saxiixin. Vinicius Junior oo bedel ku soo galay dhammaadka ciyaarta ayaa daqiiqadii kaliya ka hadhsantay ayaa goolka saddexaad ee Real Madrid kubad qurux badan caawina uga sameeyay Lucas Vargas oo shabaqa ku hubsaday isna. Real Madrid ayaa yeelatay 78 dhibcood oo ka urursatay 33 ciyaarood ay dhashay waxaana 17 dhibcood ka horeysa kooxda ku soo xigtay Atletico Madrid oo fadhida. Manchester City oo hogaanka horyaalka Premier League kala wareegtay Liverpool xilli ay 5 kulan ka hadhsay dhammaadka xilli ciyaareedka. qodobka isaga ayaa aynu milixsan doonaa. kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League oo xalay habeen hore si kumeel gaadhay hogaanka horyaalka Premier League loo wareegtay Liverpool oo ku tumatay kooxda Man United. Man City ayaa dib soo ceshatay hogaaminta horyaalka markay 3-0 ku xasuuqday Brighton oo marti ahayd taasoo Pep Guardiola iyo kooxdiisu si weyn ugu dabaaldegeen maadaama horyaalku marayo meel xasaasi oo 5 ciyaarood oo kale ay ka hadhsay dhammaadka xilli ciyaareedka. 3 gool ay kala dhaliyeen 3 ciyaartooy kala duwan ayaa Manchester City u go'aamiyay guul weyn ay ka gaadhay Brighton oo marti uga ahayd Etihad Stadium taasoo ku garaacday 3-0.
Man City ayaa inta badan ciyaarta maamulaysa oo qaybtii hore heshay fursado badan oo ay gool ku dhali karaysay, hase yeeshee waxaa sun adag xidhatay Brighton oo iska caabin badan samaysay, hase yeeshee qaybtii labaad ay wax walba isbedelay goolashuna ay u furmeen Man City. Xidiga Riyad Mahrez ayaa gool dhali u furmay Man City ayaa daqiiqadii 53 dhaliyay, halkaas oo ay bilaabatay guusha ciyaartan. Ciyaarta Manchester City ayaa si aad ugu dabaaldegay goolkan oo la moodayay inay ku qaadeen horyaalka Premier League, laakiin ay xaqiiq tahay inuu muhiim u yahay tartankan ugu jira hoggaanka horyaalka Premier League. Phil Foden ayaa isaguna si dhab ah ugu xaqiijiyay guusha Man City, waxaana kubadda kale Riyad Mahrez u dhammaystiray daqiiqadii 65aad, halkaas ayay ka furmay culayskii ay dareemayeen ee ka haystay haddii ay guuleysan karaan iyo in kale kulankan. Dhammaadkii ciyaarta ay ka hadhisatay 8 daqiiqadood keliya ayaa goolka saddexaad ee Man City yimi, waxaana u saxay Bernardo Silva halka Kevin De Bruyne oo ahaa kubad farsameeyaha goolkan. Natiijadan ayaa ka dhigay in Man City ay yeelatay 77 dhibcood, waxaana hal dhibic dhaaftay Liverpool haysato 76 dhibcood, isla markaana kaalinta labaad u dhacday. Arsenal oo Stamford Bridge ku dhex qaabtay Chelsea, Niketo oo 2 qalad ku dilay Blues iyo rikoodhka cajiibka ee laga diwaangeliyay ciyaartan ayaa ugu dambeyn doona barnaamijkeena maanta oo Khamiisa. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kusoo laabatay jidka guusha, waxaanay 4-2 ku garaacday Chelsea kulan ka dhacay Stamford Bridge oo soo afjaray 3 guul daro oo iskugu xigay Gunners ka soo gaadhay horyaalka Premier League. Arsenal ayaa si dardar ah ku bilaabatay ciyaarta ay daqiiqadii 13aad oo kaliya ku qaadatay inay burburiso daafaca daciifka ah ee Thomas Tuchel ku soo bilaabay ciyaartan, waxaana iska caabin kari waayeen laacibka da'da yar ee Niketo oo 2 qalad oo difaaca Chelsea sameeyay ku ciqaabay, halka goolka kalena uu raacay Smith Rowe ka hor inta aanu goolka afraad ee rikoodha dhammaadka ciyaarta aanu ku dirin Bukayo Saka. Chelsea ayaa 2 jeer ka daba timi goolasha lagala hormaray, hase yeeshee waxay awoodi waayeen inay ugu dambeyntii ka daba yimaadaan goolka. Thomas Tuchel oo markii lagu soo noqday qaybtii labaad bedel ku keenay Thiago Silva si uu xaliyo khalkhalka ku jira daafaca kooxdiisa, sababtoo noqday goolka koowaad ee Arsenal iyo midka labaad dhexdooda laga laaday. Niketo ayaa noqday geesigii kooxdiisa, isla markaana muujiyay inuu yahay xidig mustaqbal anfici doona tababare Mikel Arteta. Chelsea ayaa lumisay fursad weyn oo midkood u khasaariyay Romelu Lukaku oo la bedelay markii uu ku dhex haftay daafaca Gunners. Waqtigii dheeriga ahaa lagu daray ciyaarta Arsenal la timi goolka afraad rikoodhaha, waxaana si xarago leh u dhaliyay Bukayo Saka, waxaana ciyaartu ku soo ilaatay 4-2 ay guusha ku raacday Gunners. Guushan Arsenal ayaa waxay rikoodh fadeexad ah ku noqotay Chelsea oo markii ugu horeysay muddo 29 sannadood ah iyo 3 kooxood oo reer London ay ku garaaceen Stamford Bridge. Arsenal ayaa soo gashay kaalinta 5aad ee horyaalka Premier League, waxaana isku dhibciyay Tottenham oo 7 dhibcood iyaga oo labadooda kulaba min 32 ciyaarood ciyaaray. Barnaamijkeeni ciyaaruhu intaas ayuu ku egay. Fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar, haddii hore noo joogto like iyo share ku dar, sina faafi barnaamijkeenan si uu gaadho asxaabta jecel kubadda cagta. Mahadsanidin.